السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت كسر دوانا مركلة جنال كيجا وأبشر أيضا صدوا مقال كله. سيد ودوك سنتين مقال كقدام بيوحان كسمي محل عنا جيم ككار. هدي أنا داورين مقال كسوق صادق دونا مالها هنلين كيجا صادق دونا ما نداو. سيدو كله أصحابت إن كم ذا وحسوا عطسان جيم ككدب محل عنا. سيد أكسنتين جنال كان أدين كأسكال أدين كويدين شقيا أصحابت. ما أنت برك مقال كان وحوجهت لنا بوست ورك أوت ميل أما محل عنا جيم ككدب. اوكي اسحبته aynu guda galno. اوكي asxaabta muuqaalka intaynan guda galin hadii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar sidoo kale muuqaalkana like saar. Muuqaalka markii aad like saarto waxay caawin doontaa channelkayga in ay dad badan arkaan. Waan kaaga mahadcelinayaa. Okay, maanta muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa gymka kadib maxaa la cunaa. Horta intaan idin sheegin gymka kadib cuntooyinka la cuno, waxaan rabaa inaan idin sheego faa'iidooyinka ay leeyihiin ama waxa ay ku qabanayso cuntadaas gymka kadib aad cunaysid. Numberka ugu horeeya ay ku qabanayso waxa waaye waxay soo celinaysaa energy-gii aad qarash gareysay markii aad sameynaysay exercise. Sidaan hore idinkugu sheegay muuqaalka hore, jirkaagu markii aad exercise sameynayso wuxuu isticmaali doonaa glycogen wax la dhaho energy ku kaydsan. Kadib post workout mealka markii aad cunto ama gymka markaad ka imaato cuntada markii aad cunto storage-kii ayaa la soo buuxin doonaa. Shayga labaad ee post workout mealka ay ku qabanayso waxa waaye in ay ka ilaaliso ama jirkaaga ay ka ilaaliso inuu murqihii isticmaalo ama breakdown oo ku sameeyo si murqihii loo dayactiro. Sidaad wada ogsoonahay gymka markii aad joogtid exercise-yada aad sameynaysid ma ahan inay muruq markaas dhisayaan ee murqihii ayay dilaacinayaan. Murqaha ayaa lagu dilaaciyaa gymka hadhow markii aad cunto fiican oo protein la aad cuntid murqihii waa la repair gareynayaa dib ayaa loo dayactirayaa markaas ayay dib u soo korayaan ayagoo sidii hore ka xoogan. Marka post workout mealka waxay ku qabanaysaa repairka shaqadaas ah murqihii in dib loo soo dayactiro. Shaqada saddexaad oo cuntada gymka kadib la cuno ay ku qabanayso waxa waaye in ay ka yareyso murqa xanuunka iyo daalka. sidaad wada ogsoonahay markii aad gymka ka imaato maalin kadib murqaha ayaa aad ku xanuunaya lama taaban karo nabar oo kale noqonayaan. laakiin haddii aad nutrition sax haysato murqu xanuunayaan aad kuma xanuunayaan waayo murqahaas cuntadaas fiican oo loogu talagalay markii aad cunto way ka ilaalinaysaa muscle soreness waxa loo yaqaano ama murqa xanuunka. shaqada saddexaad oo post workout mealka ay ku qabanayso waxa waaye in la dayactiro murqahaagii dhammaan ama ay ku siiso recovery soo kabsasho oo gymka biri ku soo laabatid adigoo sidii hore ka xoogan. maadaama aan isla fahanay waxyaabaha ay ku qabanayso post workout mealka ama cuntada la cuno gymka kadib waxaan idin sheegayaa haddaba maxaa la cunaa. sidaan hore idinkugu sheegay pre workout-ka cuntada la cuno ayaa sidoo kale post workout-ka la cunaa. maxaa la cunaa? waxaa la cunaa protein iyo carbohydrate. gymka markii aad ka imaato fats uma baahnid kaliya waxaad cunaysaa protein iyo carbohydrates. waxay noqon karaan breast chicken ama waxay noqon karaan brown rice iyo chicken ama rootiga oo brownka ah iyo chicken, rooti brownka ah iyo malay, rooti brownka ah ama iyo hilib. ama waxaad sidoo kale aad isticmaali kartaa cunto fudud oo sidoo kale xabad moos ah iyo protein shake oo kale isticmaali kartaa ama any fruits iyo protein shake aad cabi kartaa. adiga markii aad gymka ka imaato waxaad cunaysaa cunto ka kooban protein iyo carbohydrate. okay, waqtiga lagu cunayo haddaba maxay tahay? ilaa intee goorma ayaa lagaa rabaa inaad cunto? waxaa jiro waxa la dhaho window daaqad oo markaas jirkaagu aad u furan yahay oo aad uga faa'iideysanayo cuntada. intaasna waxay u dhaxaysaa waa gymka markaad ka imaato ilaa 1 saac inta u dhaxaysa inaad ku cunto ayaa loo baahan yahay cuntadaada post workout-ka ama gymka kadib. gymka markaad ka imaato ugu badnaan 1 saac. 1 saac kadib inay dib u dhacdo lama doonayo. okay, asxaabta post workout mealkana waa kaa sidaa ayaad u sixi kartaan. sidoo kale pre workout-kiin horaan uga hadalnay muuqaalkaas description-kan waa soo dhigaya linkigiisana meelahan aan soo dhigaya haddaadan daawanin asagana daawo. waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iidi doontaan. sidoo kale maxaad jeclaan lahaydeen muuqaalada kale inaad aragtaan ila soo hadla asxaabta kanaalka idinka ayaa iskale iisoo qora wax walba aad rabtiin inaan muuqaal ka sameeyo waan kasoo sameyn doonaa. sidoo kale haddii ay tahay marka ugu horeysa kanaalka subscribe videogana like saar waa inoo video kale
bye bye, see you guys.